shirkan ajandayaashii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay marka hore waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga oo ay soo bandhigtay xaaladda amni guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda halka ay wax marayaan sidoo kaleeto waxaa ajandaha shirka ka mid ahaa wasaaradda caafimaadka oo laga dhageystay warbixinta COVID-19 caabuqa coronavirus-ka halka uu update-ka u dambeeyay warbixin ay ka siisay xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka sidoo kale shirka waxa wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa waxa ay keentay hindis sharciyeedka maalgashadayaasha iyo maalgashiga oo golaha wasiirada ay cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay keentay habraacyo xooga dalka habraacyadaasi oo maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen waxa ay kala ahaayeen habraaca hoggaanka maamulka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo habraaca hoggaanka maamulka iyo maaliyadda ciidanka xooga dalka Soomaaliya iyo habraaca hoggaanka saadka ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale habraaca hoggaanka gaadiidka ciidamada xooga dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa ajandayaashii ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada maanta lagu soo qaaday kamid ahaa siyaasadda ilaalinta bulshada oo ay keentay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada وقالوا وزير هذا عضو أغلبية لكو أنسحيه